hadlayaa arrin mawduuc ah oo lagama maarmaan ah arrinta xusbiga kulmiye maanta muranka gelisay taagan oo ah ninkii ina xaashee 8 sanadood wadanka carabka mariyay ee madaxtooyada iyo madaarka muudsaday ee aan xaab u reebin ee qoortu weynaatay ee raggii ku jira ina cigaalla inuu uga dhaarto wadanka intuu joogo ina cigaal inaanay sooba gelin uu ka dhaartay uu kow ka ahaa ee maanta ogteen sidoo ahaa anigoo ah masaxaadiisii madaarka ee khaaska ah eenu bayroolka ku darin oo dulmiyo cidla kaga dhaqaaqay markii dambana inuu dalku dareeriyay aan kow ka ahaa anigoo la jaara madaarka oo dadkii dhulka laga qaadanay aan kow ka ahay ee imika dhul bedelka raadinaya ee shaqadiina laga eriyay ee nalagu dulmay cuqubada iyo dunuubta ah ina xaashaa dhigay nin waxaa dhigayna maanta inuu han sameeyo uu yiraahdo gudoomiyaaban doonaya uu habar jeclana ku kala jabiyo suldaamo u kala sameystay caaqila u dooda weerada 18 jir baa sanam ku soo galay haduu 18 jir sanam ku soo galay amba muu sidii lixla dhinto amba muu sidii harag waafa dhinto ninka geesiga waa ka dhintay dalkiisa u halgamay xoroobay ee ku xoreeyay dalka sidoo ugu xoreenayay maalin kaliya guuto uu meel mariyay iyo guuto uu meel kale toona kuma aanu maqal wax aliyaala wuxuu sanam ka tarinay ma jirin imikana muran iyo carqalad ayaa la yimid haday taasi tahayna maanta nin baa uga xaq leh ina kaahin baa uga xaq leh gudoomiyenimada kulmiye iyo ina cabdi dheere waliba isaga ina kaahin baa maanta xaq uga leh ina kaahin waaba ku soo joogsanaya hadaad salaanta ku salaamaya waa nin maanta mas'uul ah oo isagu garanaya waxa tahay iyo waxa tahayba nin kale cirku eegay waa ninka madaarka 8 sanadood reer gob uu hela reer gob deegaan gob uu helo nasaba alla reer ku gobsanayo nasabsanayna aanu daba soconayo wasiir anu laakiin waan arkayo ildeer baan lahaa wallahi suuligiisaan 3 sano iyo 6 bilood meeydhay bishii maalin buu soo gali jiray xafiiska waxa hawl kale uu watay wax kale ku hawlana haday maanta taasi dhacdo dad waaba laga dareeraya ninka haduu sooba dhex galo de kumaba isagu maba oran karaba maanta waxaan u sharaxanahay gudoomiyaan u sharaxanahay kulmiya wallahi haduu isagu maanta soo hadal qaado amba uu soo sharaxo dad badan baa dartii wadanka uga tagaya waa daalin wallahi maxkamadda heeg la taago ayuu xaq u leeyahay mutaysta ina xaash ina heeg la geeyo masaakiinta iyadu dulmay oo halka kaga dhaqaaqay airportka intuu danihiisa gaar ka fushaday ku doonayna 3 bilood bayroolka ugu daro annagoo masaakiin oo jaara oo dhulka yagi naga qaaday oo agooma ah uu yiri kaalaya shaqaysto mid masaxaad iyo mid meel ku yar leexiyaba bartibu naga dhaqaaqay wallahi inaanu qof bayroolka noogu darin dadka yagi jaarka hawaanu maranay maanta warqad dacwadaanu samaysanayna inaanu garoonka ka helo xaq oo ka helo $10 markay u yaraato percent oo caruura iskuulada kaga bixisano dhaqaale iyo xaqna laga siiyo xaq baan u leenahay laba inaan oo yar u rabaystay iyo isaguba cidlay naga dhaqaaqaro wayna barabariye nin ruuq cadaayno lama joogin nin yiraahdo war dadka sidan ka daamanaan haysan wadada inta aragtaan la xidhay gaarigaanu shidaalka ku shubana waa $10 inta lagu wareegaya hadii sana beerta soo jeedo soo eega soo jeedka la iga qaada oo si jeedka la iga qaada oo beeraha iyagu wada xidhay waxa yaray madaxweynaha waxaan ka codsanayaa wasiirka hawlaha guud waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne iyo wasiirka hawlaha guud waxaan ka codsanayaa inta yar noo hadhay inay noo fasaxaan amba laga iibsado amba aanu beeranay inta ina noo fasaxdo ayaanu mudane madaxweyne ka codsanaynaa ina xaashina anigu horena waan kuugu sheegay mara kaliibkayga ma daawanay horena waan kuugu sheegay in maxkamadda heeg la tiigsato oo xaqi umada weydiiso oo sidoo dalka u maamulay isaga iyo 5 dumar madaxtooyada haysta iyo xirsi todobada looguma iman madaxtooyada maamul Soomaaliland leeday siraayo gabbuha waaran salaamaya waaran hambalyeynaya laakiin ina xaashi hanyaraan buu habar jeclana maanta isugu dhufanaya riwaayadna oo wadaay ina kaahin baa ka mudan ina kaahin baa haduu mid gudoomiye qaadanaya والسلام عليكم إذا كهري أياك ظلمي وهالكا كاga dhaqaaqay xaq ayagana ilaahay baa noo soo celin shaqadayada ilaahay baa noo soo celin xaq madaarkan jaarka kullana ilaahay baa nasiin hada والسلام عليكم ورحمة الله heshiiyeen madaxweynaha inay wadanka basiirkiisa soo celiyaan inay wadanka wax ku wada qabtaan inay u wada siman yihiin inay maxay tahay wixii wanaag ku jiro ee tasriix ku jirta ay qabtaan raggan doorashada sugaya baarlamaanka iyo guurtooda maanta qalinkoodu ma shaqaynayaan waa in ragga bedeli lahaa la keenaa oo iyagana sida meesha ay kaga tagaan